maan helin intii uu soo noqday inaan kulanno waxaan ku aqaanay afgaabni waxaan ku aqaanay xishood waxaan ku aqaanay nin dhowrsoon inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo Safwaan Xasan Aadan oo shil baabuur ku dhintay waxay geeridu ku soo xaadirtay xilli habeenimo ah waa xaq laakiin waa geeri tiiraanya leh waa geeri murugo leh waxaan marka koowaad ka taxsiideynayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii uu ka baxay Safwaan waxaan ka taxsiideynayaa oo kale bahda fanka waxaan ka taxsiideynayaa shacbi weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo taqaanay rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyay 2014 ayaan Safwaan isku barannay guri ku yaala Xero Awr oo lahaa Axmed Ibraahim Maxamuud Furunle waxaan ku aqaanay afgaabni waxaan ku aqaanay xishood waxaan ku aqaanay nin dhowrsoon nasiib maan helin intii uu soo noqday inaan kulanno laakiin tiraba 3 jeer ayaan wada hadalay waxa Safwaan igu dambeysay 2022 oo isku aragnay magaalada London Safwaan wuxuu ku noolaa indooyinkii ugu dambeeyay Sweden Ireland buu haddana u soo guuray waxaan si gaar ah uga taxsiideynayaa walaalkay Cabdirasaaq Xaamud Caydiid Sheelaani oo ay 5 sano ugu dambeeyay wada deganaayeen rafiiq ahaayeen wada noolaayeen Safwaan waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo waxa runtii qof dulqaad badan oo naxariis badan ilaahay naxariistiisii ha ugu naxariisto dhalinyarada muddooyinka dambe shilalka ku dhimanayana waxaan leeyahay walaalayaal taxadira inkastoo aanu geeridu iyo mowdku meel jirin haddana taxadirku badbaado idin yahay bahdii fankoo dhammaan ka taxsiideynayaa inna lillahi